مسؤوليين reer gobol ee xisbiga mucaaradka u cuud ayaa ugu baaqay in doorashooyinka Soomaaliland waqtiga loo asteeyay lagu qabto sidoo faahfaahinta warkan oo noogu soo diray wariyaheena Sikriye Saxane مسؤولينta xisbiga mucaaradka u cuud ee gobolka Awdal oo ay weheliyeen musharaxiinta u tartamaysa jagada xildhibaanimo ee golayaasha wakiilada iyo kuwa deegaanada ee xisbigaas oo maanta shirsharaad ku qabtay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka u cuud oo ku leeyahay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay fariin u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana ugu baaqeen in waqtigii loo asteeyay doorashooyinka golayaasha la qabto waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaanan ayidayna baaqi xisbiga ka soo baxay ee doorashooyinka deegaanada iyo golayaasha baarlamaanka ee dalka oo waqtigoodii muddo dhaaf noqday oo maalin ay soo saareen xisbiga cadaalad iyo daryeelku ayaan ku ayidaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka ee la soo doortay inuu tixgeliyo dhawaaqa xisbiyada qaranka oo ka tanaasulo ku dhiganaashaha oo meesha ku dhigan yahay ee carqalad ku noqotay doorashooyinka qaranka la qabto madaxweynaha baa ka horeeyay tanaasul bay muujeen dalka u tanaasulo oo dadkiisa eego oo golayaashan sharci dhaafka golaha deegaanka golaha wakiilada guurtadoo dhaxal noqday intaba inuu dalka iyo dadkaba eego markii ragii joogay meesha waxa la sameeyay inuu guurtadu baa la dhaqaajisay iyadoo baa garanaysa soo xalin jirto waxaas wixii hadda waa la kari laayay meel laga wadayo meel ay ka socoto wal garan laayay kii xeerka sameyn lahaa u sameyn lahaa baa la yaa magaranaysa dhaqaaqila iyagii baa magaranaysa isku noqotay qolo dhaxala tii deegaanka aad arkaysa oo magaranaysa dhaaftay baarlamaankii baa dhowr 10 sano halkan jooga oo moodaysa inay meesha iska yeesheenba marka waxa weeyaan madaxweyne waxaan leenahay wax loo dul qaadan karayo maaha waa waxa magaranaysa dimuqraadiga ummadii sidii loo socon lahaa ay ku baabaayso weey waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu doorashada degdeg ugu dhawaaqo dadkii sugayaan nahay kuraasida insha Allah hadii ay maanta Sheekh Madar iyo Sheekh Muuse Gooda nool yihiin ama dad ay ummaddu soo doorteen oo guurtidii saxda ahayd la garanayay ay joogaan waxaan aaminsanahay in shaqaqadaasi soo afjarmi lahayd waxaan mar koobaad iyo mar labaadba ugu baaqaynaa in sharciyada la dhowro sida ugu dhaqsaha badan lana loo qabto doorashooyinkii dalkan ka qabsoomi lahaa ka soo baxay xisbiga wicid inuu madaxweynuhu tixgeliyo misana uu qabto doorashada aan sugayna ee muddadeedii iyo waqtigeedii dhacday waxaan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wadanku wuxuu lahaan jiray waqti doorashadu waxay lahaan jirtay waqti xildhibaanadu waxay lahaan jireen waqti golaha deegaanka wuxuu lahaan baarlamaanka wuxuu lahaan jiray waqti waxaan leenahay waqtigii maanta sidaad arkaysaba gudoomiyaha waxba ka qarsooneyn waqtigii uu dhaafay waana tagay waxaan leenahay daba qabo gudoomiye aanan kuraasna aan suganayna soo ugu dhaqsiyaha badan la go'aan degdeg ka qaato taageerina xisbiga oo daryeelka cadaaladda go'aanadii ay soo saaray ee ahaa waa in si degdeg loo qabtaa doorashooyinka marka doorashooyinku waxa weeyaan waa dadka waxa lagu kala soocayo qofka la soo doortay iyo qofka la soo dooran marka waxa weeyaan 10 sano fadhiyaan dadkii hore loo soo doortay waqtigoodu saas ku taa oo ku dhamaaday nin waqtigiisa dhamaaday sidoo maanta dad ummadu ugu taliya u maamulaa waa adag tahay Sikriye Saxane Royal TV Boorama.